hooyo gabadheedii gadatay 15 jir waa gabadheedii nin lagu daraayay weliba qodbi sare ah waa gadasho lana cunug ma ku 18 sano gaarin masar waa gadasho ma isku daro lano waa inuu 18 sano gaaraa mas'uuliyad qaadi karaa maxkamadda lagu soo mehriyaa ninkaaxiya xataa sheeqa maxkamadana waa inuu warqad laga helaa laakiin hooyada ma aysan sameyn maxaa yeelay faqri ay tahay darteed ayay gabadheedii u galaatay in waqti kooban oo ninkan taajirka kusoo haysanayo 15 jir waaye abukaad oo gabdhaha 15 jirada gado saas oo waruusiyo qudbisirada ayaaba jiro ila xiriirtay قصة دمستنا قال اللي يست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة وحواي فقر نمضى مالحن نوجرسينس فقر نمضى مكي كابضته وحول بيوقفتكم فكري وأما الجرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن أساس إنكم فكرت ماهن وحا أقررت قبل ديري هويدان نينك تاجرك وحيرا وقوبا وقبايا وليه waxa ugu roonay inay tiraahdo ani iyo adigaba guriyaha islaamiyeed ka soo shaqeyn dhar ka soo dhaqayna alaab ka soo dhaqayna dhul ka soo dhaqayna xooggeena ku shaqaysanayna marsiyaanya meelaha goobeena ahsan ugu roonayno intee gabadheedii nin taajiro wax yaro qabaayo in yaro kooban oo kontract lagu soo saxiixanayo lacag lagu siinaa lahayo kadibna gabadhaada lagu soo tuurayo kaas guur ma kaas ilan qodbisaro oo baahay guurna ma ahanba inuu 15 jirka hooyadan waxay ku sameysay bal aan wada dhageysano waxay sameysay islaantan waxay qabtaa gabdho 4 gabdhood ah labada gabdhood ugu waaweyn waa 15 jir iyo 14 jir kuwa kalena way kasireen islaana inta u timiday waxay tiri dhibaatada ku hayso maxay tole wax aad haysanin maanta faqrinimada heer naga gaadib karta inay shidooysiin aad ka bixiysiin aku haya maxaa waay waxa jiray tiri maxaami abukaad waxa jiray tiri oo sameey qodbisiro gabdhaha yararka ah ugu la daro nimanka lacagta loo taajiriinta marka lacag waxaad helaysaa tiri adiga dhan 100,000 oo lacagtan giniinka oo masriga ah marka saas diyaar muta ha okay qabso abukaadka nambarkiisu waa kana abarta nambarka ku qabsatay abukaadka ku wacdo abukaadka ku dhaw gabadha sabrada loo baahan gabadha adiga islaamaha gabadhii inta u labisay qurux badan u labisay waxay haysto u gelisay amburka ugu qorxnaa guriga u gelisay ee gabadha gacanta ka qabatay waa 15 jir abukaadka wada tageen gabadhii waa la sabray gabadha wax kuma og meesha loo wada xataa markay soo wada bixin waxay tiri hooyo muxuu ninkan in sabartay markaas ay ka dhacday waxay tiri hooyo taajir naqanayna adiga taajir naqanaysa noloshan si lacag ka bixaysa nin taajir ah ku guursanayo maxay tole anaga dhaqaale heynayna ana dhaqaale helaysa noloshu iska bedelaysa maxaa ka dhacday gabadha waxay istirnaa nolosha cariiriga ku jirta nin taajir wada ku urusay oo ku qaba ilaa abad maxaa ka fiican hay ay ku dhaaf inay waana wili waan iska yartay gabadha markay sii tiri waa la heshiiyey meeshii uu gashay meel wuxuu qabaa web u geliyo webkii u geliyay waxaa la soo xiriiray nin masri ah laakiin kuwait degan ninka kuwait u degan naag kuwaitiyan oo ka weyn asagana saas u guursata hadda ka hor ilmo u dhashay wuxuu rabiyaa naag yar naagta kuwaitiyanka marka ayada ayaa jecel ninkan ma fahanti wuxuu yiri naag yar aan guursanaya naag kaloo yar aan guursanaya haye tiri horta guurso markuu arkay ninkii la soo xiriiray abukaadka wuxuu yiri gabadhii oo soo saaris naftirkeedan rabaa 100 ginin anaa diyaar leh 100,000 oo ginin anaa diyaar leh haye yiri وسود اليوم gabadhii reerkeedii waxa la soo qaban qaabiye waxa aroos wax ma dhigi kartid lacagtiina qaata ilaa loo la majro sheekha la keena isku meherina tafhiirkii gabadhii waa la kacay waa waday kuweerugi guriga bilada ee degan islaanta oo geey inta soo bilada u geyn laakiin hotel ay soo degeen hotelkii gabadhii dam waxa la taalo subi xirto u gada inta ka baxay waxay istin noloshii ugu fiicnay wuxuu yiri abaay bilada aan wada aadayna biladeenii aan aadayna bilada xaaskeyga ilmaheyga joogan xaas kale ma qabtay waan maxay ay guursatay ku soo sheegay abukaadka maxay ii sheegay inaan reer kale leh xisri reerkiisna iska qabay iska raac gurigii wada tageen gurigii hadan ogolaatay habeenkii ugu horeeyay wuxuu yiri aniga iyo adiga iyo xaaska kale hal sariir wada seexanayna
سيكو سيحنا هيتر هل سريران سيحننا مصعوني سيتر هنا حاسكا ما أقوشها إن هل سريرو سيحن هاوي أقوشها هرتاني وحيجري أنيغا قد بسيران كسو قسو جرو وقت كوانا أنقبي جرو لها إسلامتي way أقولها له حاسكيغن way أقولها له gabdhaha kale tan soo gursana qudbasarada kusoo oroseen way ogolaa maxaa u diidi si ma diidi karto lacag qaat magdo waa ku soo gatay kaas raadiya aniga aniga kale raali ka miyid aniga kale ina xaaskaagi aniga adiga qol wada seexan aniga raali ma ka ihi xaaradid samay aday ku taala waa ku celinaa uu yiri lacagteedana soo ceshinaa soo cesh waxa soo cesh hadii lacag aniga qaatay tir soo cesh aniga agay tir wuu soo celi مصر لو سعودية مصر ممكن لو سعودية ما إيسن جوجني فاقي هذا كبدية وحي تكتب بريسك شرعي كان كدعونا بها ما إيسي وحي جري أفوكاتكي هو يدا إنك هؤجيسي أفوكاتك إنه جيس إن لصوص صبر إن نكاس لو قدر نكاس وحيا إن فاهين لو شيء إن لو قدر كليه نمكن أسوء استاج وأقصقتي أرن حي عودن بقى أقصب لا يؤجيس بريسك حين وين البارع waxaa soo qabtay abukaadkii waxaa soo qabtay hooyadii maxaa kugu kalifiyaa dhib hooyadii waxay tiri duruuf ahays duruuf ahays hadda duruufka hays gabadhaada maa gadanay waa gabadhaada maa gadanay maa gadanay tiri aan duruufaan haysatid wax lagu shido malaha nin lama gursa rabino hooyadiisa isku fikirna waa jiraan abukaadka waxaa la haye adna muddaa ugu shaqaysanaysaa laakiin ilaahay makuu kashifayo waa kanaa hal maraa kashifeen sababtoo غير القانون ku shaqeynaysa wax ka baxsan sharciga baa ku shaqeynaysa laana cunugu markuu 15 sano jiro lama guuri karo ilaa uu ka gaar 18 sano maxkamadda waa in lagu mehriyaa sheekhan markuu mehriyo maxkamadda lagu mehriyaa cunug aan 18 sano gaarin soo ku mehris see shaqo u keent yani tuugnimo maaha tuugnimo ku shaqeysanaysa saasi abukaatin markaa dhamaatay yani shaqadiis dhan way qasantay waa laga qaaday abukaatinimadii abukaatna ma noqonaysaa hooyadeen xabsiyaa loo qoray in waqtigaa soo qaadanay abukaatkan xabsiya loo qarasnay waqtigaa soo qaadanay gabadhii iyo walaalaheed isku hireen gabadhii iyo walaalaheed ilaahoodii qaban laakiin xaqeeda raasatay mistirin laano sababtoo ninkii wuxuu u dagaalamay in lacagtiis loo soo celiyo 40 kun loo celiyo qasaare qayb baya 40 kun oo lacagta ninka loo celiyo asaga xataa ilaa soo qaban lahaayeen wadanka banaankiisa soo jira asa xataa xabsi u ahay ilaa ma la soo qaban karo wadanka banaankiisa soo jira marka dad lacag ku xilanayo wax walba wallahi adduunku waa dhacan dad lacag ku xilanayo ilmahooda inay ku sameeyaan maxaa ka sheegay dad waxa jira bay ilmahooda xataa ku qataan hadda nina laga gadayba dad ilmahooda yarka xataa iyagoo yar u baahan gadanayo waxaan ku arki jiray wadamada kaleete laakiin Soomaalida xataa way naqatay inay ilmahooda gataan ma jiri jirtaa jiri ilmo Soomaali hooyo Soomaali meel galis laakiin way jirtaa sababtoo hadda kooran arkay ka maqlay TikTok gabar ka sheekeynaysa dhis Mareykanka joogna gabar aan meeshan ku arkay wixii tiri waxaan ka soo waday beledweyne gurigeen waa xasuustaa anoo yar markay soo wadanay ciidan gurigeen waa xasuustaa beledweyne ku yaala geed weyn ku hor yaala inuu xasuustiya ku jirto marka waxa dareemay in laga soo gatay waa laga soo gatay laga soo gatay قالوا نحن في عين ويش يعني المها إيه كرسان وعير هذا مهلا ولا نساقان أصلا كده مكوينا لكن مكوينا مكوينا إيه كعملوا هاي وقمة لكن مكوينا إسك شيء وحير هذا أنا كومات لين أكو سو كرسان اللي بلان كاسو قادني أكاسا لكن هايو قبل هذا قبل كرستي قبل لا استحسن أو لمن غرفي أنا نظيف وهلي وإسك شيء قيس كران صوت وقدرنا سمعت نين هذا نين هدوسي قباي حتى محي أهله وحوي أهله نين أو كونتراكت وحير كونتراكت قرمي على صحيحة وكونتراكت استغفر الله مالا كرينا ميا كونتراكت وكالقات استغفر الله عدين أدونك وحان أركين مجر سبحان الله وكايا بنايان قصة مكا ديست أثاس ليها بيست وكساشو إله نموت قصة ما تنتاسيكو إكتاي إن شاء الله قصة لمد سوقني ماذا باش برواقع أنكو عافمات قبل إنكو عافمات قبتين غير بدنا إذن دافي dadka cusub waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan guriga waa gurigeen gabadha waa walaasheen subscribe-kayga baqiilina like sidoo kaleete share iyo dara insha Allah
dadka ila joogan asxaabteedii ahaayeen gambaloolka usoo dhacaa gambaleelkana furta inta noogu cusub inta horena gambaleelkaa u furan baa arka horey ka arkaan qasidan soo geliyey maasha allah tabaaraka allah hay barasho wanaagsan waa idin jeedaa kole anima idin jeeda ma dhihi kari anaa ii jeedin kole ani ima jeedo hadalka xataa xoogaa marka waa iska qaldama khayr badan ayaan dhaafay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu